waxaan rabaa inaan mayga ku soo dhaweeyo Paul Marino oo loo yaqaan Geedi Raaga Rooble ila soo dhaweeya Geedi marka Rufai aad baad u mahadsan tahay inaad inoogu azuuntay barnaamijkan sharafta leh salaan buuxdo aadna idin keenaya kooxaheen oo dhan oo Buulbarti joogi jiray iyo Mark Erickson iyo kulli dadka ay joogi jireen marka magacaygu waa Paul Marino ama naanees ahaan Geedi Raaga Rooble ninkii igu bixiyay oo magaciisu waa Islaaw Xasan Guuleed isoo wardiye ah isbitaalka oo nin fiican buu ahaa alla ugu naxariisto hay ma agtiya marka kalkaali caafimaad baan ahay doctor miihi waxaan dad badan markay rag arkeen oo caafimaad ka shaqeynayaan waxay yiraahdeen war doctor aniga doctor miihi markaas waxaan dhahayaa nin xil qaada eed qaad taas maraba shaqadeeda aan jecelahay kalkaali caafimaad baan ahay xaaskaygana Shamso kalkaali oo kale oo kooxaheena isbitaalka degmada Buulbarti aan ka shaqeyn jirnay waqtigii 86 iyo 89 oo mar hore ahayd runtii haddii aan ka fakiray anigoo 26 sano baan ahaa markaan tagnay aruur ma lahayn waqtigaas hadda 56 baan ahay awowna waan ahay iyo ayeeyo Shamso marka waqtiga wuu ordayaa marka hadda waxaan ka shaqeeyaa isbitaalka Hennepin daktarada ayaan la shaqeeyaa ayada takhasuskeedii waa ayada qaybta lafaha takhasuskeedii waa gacmaha in la qaliyo iyo marmar dadka Soomaali way igu yimaadeen oo marka mahmaa Soomaali ah u sheegay waxa uu sheegay ogow lugta waa la dhibaa gacanta waa la dhooraa ishi waa la dheefsadaa oo markaasay ku yireen war yaa ku baray waa cilmigii Soomaaliya maqli jiray laakiin intaan bilaabay horta waxaan arkay waftigii iyo daktarado iyo dad oo reer Buulbarti oo dhab ah oo run ah anigana nin Mareykan aan ahay oo 3 sano bis baan joogay waxaan u maleynayaa sidii maxmaa Soomaali oo ay yiraahdeen baqal fardo la daaqaya fars bay ismooda marka laakiin runtii aad iyo aad dadka Soomaali way noo soo dhaweyn jireen marka oo marmar waxaan ka yaabay laakiin ma taqaan anoo isbitaalka joogay dadka markay u yimaadeen oo aan salaamo waxay yiraahdeen war adiga miya wiilka af Soomaali yaqaan markaasaan iri aniga nin 56 jir ah oo awoo ah oo wiilka af Soomaali yaqaan loo yeerayo waan ka yaabay ninka af Soomaaliga ma dhahdid aniga wiil yar mihiid waa ogahay dadka Mareykanka waxay qiimeeyaan aruurtinimo iyo dhalinyaronimo laakiin aniga sida Soomaali ah waa ogahay dadka dacweyn ayaa maskax weyn sida mahmaada nin 20 jir intuu geedka boodo talaka boodo marka dadka waxa uu sheegay kan ciidaaneed ma aha aniga nin weyn aan ahay marka wax kasta waqti haboon buu leeyahay waxaan xusuustay markaan Minneapolis soo guurnay 1999 bay ahayd oo isbitaalka Hennepin waxaan ka shaqeynayay Dr. Osman Harare oo nin aan ah oo marka waqtigaas ma jirin kalkaaliyo badan oo Soomaali ah laakiin hadda way tir badnaayeen taas waa loo baahan yahay waana wax wanaagsan meel kasta aad tagaysaa waa arkaysaa ama daktaro Soomaali ama kalkaaliyo ama sheybaar ama shaqo kasta la arkayo Soomaali baa qabsanaya taas loo baahan yahay markaan arko dad badan oo dadaalayaan in dib u dhiska isbitaalka Buulbarti ay sameeyaan
aad baan u faraxsanahay runtii maxaa yeelay waa ogahay shaqadan waa arrin ka badan hal qof runtii sidii aan waxaan xusuustay niman xamaali ah oo shaqaynayay xamar ayaga way heesayeen markay shaqaynayeen waxay yidhaahdeen quraansho ururte bula waajita quraansho ururte bula waajita saas bay yidhaahdeen oo waana arki jiray quraansho bula jiidaya indhahayga waa ka arki waana run waa sida far keliya fool ma dhaqdo waa runta marka waqtiga gaabnaa oo 3 sano oo aan reer buulaay baan ahaa dadka aad bay noo soo dhaweyn jireen runtii wayna martiqaadayeen oo waa isla shaqaynay waxaan maqlay daraad rufacay baa ii sheegay umalasadii oo muxubbo hare ee wili way joogtaa buulabarti waan ka yaabay wax badan baa isla shaqayn jirnay marka shaah badan baan cabnay aad shaah badan baan cabnay iyo hal mar ana geel baan cabay mar laba ma cabay waa ogahay idinku waxaad qabtiin caafimaad inay tahay laakiin inagoo shuban bis waa dhib marka inkastoo buulabarti waa magaalo yar waa dadka oo reer buulabarti ah waa dad wanaagsan oo caan ah oo qof kasta waxay faanayaan magaaladoodii ma fahamtay marka anigana iyo inkasta aysan ahayn hal qabiil ah dadka si nabad bay isla noolaayeen runtii saas baa arki jiray marmar aad baan ugu xumahay markaan arkay dadka Mareykanka ayagoo fahmi iskhilaaf baa jira marmar dadka Mareykanka iyo dadka Soomaali anigana markasta dad Mareykan waxa uu sheegayaa dadka Soomaalida waa sida idinku tiin waxay dadaalayaan mustaqbalka caruurtoodii nabad bay rabaan horta ogow diintooda aad bay u qiimeeyaan laakiin waxay yihiin dad gacmo furan aad iyo aad marka aniga ahaan geedi ahaan iyo xaaskayga Shamso wax badan baan ka faa'iideysanay dhaqanka iyo ilmiga Soomaali oo dhalinyaro kasta oo Soomaali ah waxa uu talinaya bal afkiina hooyo baro sababtoo wax badan haddii aad turjuntid ma fahmaysid xagga ilmiga Soomaali marmar anigana waxa uu sheegay tartiib waa baran kartaan laakiin marmar waxa dhacda dadka waalidkooda waxay yiraahdeen wargeediyo abdiyo adiga doqona tahay ma si fiican ma baratid abdiga ka fiican marka kaas loo baahno waxa la rabaa inaad dhiirigelisid sababtoo sida dadka Soomaali ay dhiirigeliyeen xamar markaan nimid waxaan yiri subax wanaagsan oo dadka waxay igu yiraahdeen ma taqaan war afkoodana baratee nin fiican aad tahay marka dhiirigeli caruurtii way baran doonaan oo marmar maadaama Dr. Cusmaan Isaaq dadka qaar waxay u mareeyeen inaan ahay barwaani marka marmar mahma barwaani waan tuuraya mid oo la dhaho sidaad u baranaysaa lug marow laazim laamigu ku qaadaya marka Ahmed Ali Hayli allaha u naxariisto soo reer buulabarti ah isaga macallin uu noo ahaa hogaamiye iyo walaalkeen buu ahaan jiray oo wax badan buu noo sharaxay ku saabsan heesaha iyo sheekooyin iyo mahmaayo iyo dhaqanka Soomaali runtii markaad qof ajnabi tahay markaad meel tagtid adiga wax ma taqaanid runtii ma fahmi kartid haddii qof ku sharaxaya haddii kale wax ma fahmaysid marka aad iyo aad macallin buu noo ahaa oo mar labadeena waa isla soconay buulabarti nin baa noo soo yeeray wuxuu yiri war Ahmedow
ورنكان مريكنك هدو أف سومالي هدو يغان هذا كان هافسرو مركز وحن اسئلي وأوجه وحود لحدون عقد واحد دي وسهل واي مركز وحيري متغان وحيري أوكي ورجيديو دقيسو كان كفسر وحانا أورن وان إري أورن مايو وحان إري ما أورن مايو إيجو يرى نكيري واتري وحانا أورن آن إري ويري حيرادو ووريري أو مركا أحمد وحاول لها مهما هذه أبو كان يريق إليو كان وين يقصدي مركا لكن السجا ودي ذا إنه يفسره وحيري ورنيه وشيء جدي مركله لكن ترتيب وشيء مركا ترتيب وإيشيء هذا نوافسره شن سنة كهر إسو أفريقيا وتجي أو صاحب دي سبوس سلامي أو هستي أيو نقول دردار مي هستي وهس عن لكن هستان مد أو ماركتي بريحان أو كلمة لكن واسدتان سومالي ذهني هدي أي سينا هتي سومالي ذهني هدي أي سينا هتي وسبا وناكسنه علنكنا سلاما نين لغو سهدو حسيحان هلباسيتا حسيحان نين لغو سهدو حسيحان هلباسيتا حسيحان حسيحان سوجهدو سيوينو فيجمو مركا هس كانوا نوباري مركا هسهن يوحن مركا مقلو أنا ما فاهمه لكن إسقو ترتيب ويفسره ولا ليالو إسبتالك بولوبرتي أو سنين بدن كهر لبلا لقيستي أو إبر لقدقي إن لب أودستان ووحن أحسن رنتي وحن حسوستي شاكو أو نين قبل ساعات بأوجرانيت أيا عيسى مسيح عيمت أو بريه إنه قريجي ستغو لكن أنت إيه صعنا ين ننكر أو قريجي كيمت وحيري ما علنك حد من قبرت هذا إدمتي عيسى وحيري لكن حبقن ويرهيسن دونتا مركي قريجي قارين وحي أركين تتكبرورنا ين لكن عيسى وحيري حاويننا قبرتي مدمن ويهوردا قريجي بوجلي كعنتي قبرتي وتابتي إسلام مركيبة روحي بكوسون نقطي ويفديستي مركا أنيجا واح كستا وقتي ولي هاي واسيدي حست الصومالي كله أو مار هوري مركا الصومالي جوجي أحمد ونوبري وجد هركي ولا بدا جلين قدركي ودادا كالاغور هي بلغروسو هذا الكاس سيدا قدر حرق لي وقو هاي قولا هنا شرفت لي وقو هاي ماكو غاري هذا القواشو قولا قوما واري غوغو ساني هوغا أنت هو مركا هذا الكيغا واسيقا بقبينا يا وهذا البدن حان مبوشه runta in la sheego ay fiican tahay aniga runtii ma u maleynay inaan buulobarti aadi doono laakiin runtii ilaah waxaan ka baryayaa inuu idin garab galo oo inuu muradkiina sahalo nabad kaliya